عليكم صاحب يال سو دوادا عمر لواد iyo saaxiibkiin Axmaay insha Allah bidna alkarim halkan waxaan ku duubi doonaa video scalping qaybtiisa labaad insha Allah bidna alkarim waxaa jeclahay inaad soo daawateen video qaybtiisa koowaad haddii aad soo daawan insha Allah video qaybtiisa hoose oo description ka dhigi doonaa waxaan rajeynayaa inaad videoga soo daawan doontid dibna ugu laaban doontid waxaan rajeynayaa inaad videoga hore wax badan ka faa'iideen kana wax badan kasii faa'iidi doontaan sababta aan videogan u sameeyay waxay noqon doontaa maadaama videoga hore ay jirto waxyaalo qaar dadku aysan fahmin si aan u sii simplify gareeyo ama u sii fududeeyo baa videogan u duubay waxa ka hadli doonana waa only 1 minute way marka inta aan horta videoga dhex gelin video marka 1 minute qofku uu joogo horta waxaa jirta point muhiim ah oo qofku u baahan yahay inuu ogaado pointiga muhiimka ah qofku u baahan yahay inuu ogaado waa maxay marka halkan marka pointiga muhiimka qofku u baahan yahay waxa weeye inuu ogaado qofku 1 minute ka tirgareynaya 1 minute marka ka tirgareynaysid laba qaab baa looga tirgareeyaa 1 minute ka marka labada qaab oo looga tirgareeyo waxa weeye waa qof sameynayo holding qof sameynayo oo ah qofka holding am xorwa marka qofka holding ah sameynayo wuxuu rabaa risk reward ratio ah 4 up to wixii ka weyn buu rabaa marka qaybta labaad oo ah oo la dhaho in and out waa maxay marka iyadana in out waxa weeye waa qofka raadinayo ilaa risk reward ratio 3 RR ah oo 3 risk reward ratio raadinayo marka waxa anigu ka hadlayo insha Allah videogan awood saaran waxa weeye waa qofka sameynayo in and out ka sameynayo marka in and out waa maxay in and out waxa weeye waa qofka trade-ka galay trade buu qaadanaya trade-ka uu qaadanaya inta trade risk reward buu ka leeyahay oo ka baxaya trade-ka wax laga yaabo fursadii inuu opposite-keeda change of trend helo inuu change of trend helo inuu qaato fursada qaato inuu trade ka qabsado marka qofka noocaas oo kale raadinaa laakiin qofka holding sameeynaya waxa weeye qofka holding sameeynaya muxuu ku khasban yahay qofka holding sameeynaya maadaama uu rabo trade-ka ilaa 1 inuu ka raadiyo ilaa 1 inuu ka raadiyo wuxuu u baahan yahay inuu trade-kan hayo ilaa iyo inuu soo fiiriyo ilaa 4 hour-kiisa meeshu jihada u socdo oo hour-kiisa jihada u socdo 15 minute-kiisa jihada u socdo that means marka ilaa 1 minute-kiisa marka 1 minute buu inter ka qaadanaya inter soo marka uu qaadanaya waa SLR inuu helo kaliya ma aha laakiin trendigi suuqi ma aha oo market overview kuma fiirinayo 1 minute laakiin wuxuu ka fiirinayaa marketka jihada marketka wuxuu ka fiirinayaa 4 hour-kii 1 hour ku soo fiirinayaa halka qofka markaan isticmaalayo wixii dhan wuxuu ka fiirinayaa kaliya 1 minute ku fiirinaya marka labada qaab in ay kala fahantaan baa marka hore jeclahay maadaama marka hore xogaa dhibaato ka jirto qofka yaa 1 minute ka qof uu sameeynaya halka uu 1 minute ku sameeynaya marka taa markii ka soo tago ku laabana marka qoraaladeenii iyo qaab mutaqaana insha Allah rabo inaan ku fahansiiyo marka saaxiib yaal soo dhawaada mar labaad aan bilaabana marka saaxiib yaal video qaybta koowaad horta 4 ilaa 3 qaybood baa video ka qaadi doona ay qaybta u dambayso entry-ga ah marka entries-ka iyo patterns-ku marka almost waxa isma dhaamaan wada meeshii marka meesha u hor maxaa ku qoray ultimate scalping strategy volume 2 waxa ka wada waa qaybta labaad oo scalping-ka marka waxa u baahan waa maxay waxa kaliya meesha ku qoran marka waa minute baa ku qoran minute macnaheedu waa maxay waxa awood saaranaa waa minute kaliya baa awood saaranaa marka ka hormarno ka gudubno marka qaybta directional bias waa maxay marka directional bias waxa weeye directional bias waa inaan isfahanno aragno waxa weeye suuq kasta oo forex marka aad joogtid suuqu saddex qaab mid uu noqonayo ama structure of market waa la dhahaa directional bias waa la structure of market waa maxay structure of market waxa weeye suuqu inuu ku jiro saddex qaab waa inuu kor u socdaa waa inuu hoos u socdaa ama waa inuu labada meelood meel u socono suuqu uu yahay suuq aan labada dhinac u socono suuq saddexdan mid maraa saddexdan mid marka ku jiro waana marka adoo address ogtahay laakiin hadii aad ogeyn ka waran oo suuqan waxa ku iska soo gashid oo kaliya ay ka tahay suuqan sell iyo buy kaliya ay ka tahay marka
mid kastana meesha lagu baagareynayo lagu seergareynayo waxa waa baranayna marka suuqu waa inuu maxaa iraaday uu ku socdaa down trend waa inuu ku socdaa up trend ama waa inuu ku socdaa sideways ama ranging market waa inuu ku socdaa marka su-aasha weydiinta baa waxay tahay marka waxaan hadda marka waa basic structure-ka weye marka waxa koowaad u baahanahay marka aad joogo minute waxa uu ina ogaado suuqu xaaladda uu ku sugan yahay marka suuqu ma wuxuu sameynayaa waa suuq down trend ku socdo ma wuxuu sameynayaa high suuq high ah low cusub samaystay low high samaystay new low samaystay low high samaystay new low samaystay miyaa suuq mar hadduu dee uu sameeyo intaan laba low iyo high iyo low lahay hadduu sameeyo that means suuqaas maxaa ku cadaaday in down trend yahay ku cadaaday adiga maxaa u baahan tahay marka haddii low lagu inaad sugtid in nasashada bullback uu sameeyo markuu bullback sameeyo low high ku sameeyo low high ka soo raacday ilaa uu new low gaan arhay that means ushaana soo raacday targetka ay wax laga yeena u shaakeeshay marka suuqu waxa u baahan tahay waxa weeye inaad ogaatid suuqu which xaaladii maraya suuqu ma wuxuu sameynayaa saacad meesha ka tusiyo kale new low sameynayaa oo low high uu sameynaya mise ma sameynayo oo wuxuu min ma sameynayo marka mise suuqu hadduusan labadaas sameynayn ma wuxuu sameynayaa hadduusan kaasaa sameynayn ma wuxuu sameynayaa suuqu up trend buu ku socdaa oo suuqu wuxuu sameynayaa siiqad ah in low suuq meel lowga joogay inuu samaystay new high oo ah lowga hore ka hooseeyay new high markuu samaystay inuu samaystay high lowgan marka suuqan in up trend yahay ku cadaanaysa waxa weeye waa maalinta la samaysto new high oo high hore oo suuqa oo kan ahaa laga salmaro oo samaysto new high markasta oo suuqu samaysto new high maxaa sugaysaa marka waxaa sugaysaa inuu sameeyo high low inuu sameeyo markasta oo high low sameeyana maxaa sugaysaa inuu high sameeyo marka araacisidna waa marka uu high low yada sameeyo high low intuu ku sameeyo high gaan ilaa intuu gaari ka faa'iideyso markuu high low ku sameeyo high ka faa'iideyso marka hadaa high helay marka maxaa sugayaa inuu high low cusub halkan igu sameeyo new high sameeyo inuu siiqada ku socdo ilaa suuqa laga soo jabinayo high lowgan markasta meesha high low u dambeeyo suuqa meesha ku yaalo ilaa laga soo jabsho retest ama just kaliya new structure intuu sameeyo down trend aadiyo suuqan up trend buu raacaya sida taasna waa maxay ilaa meeshan high low high u dambeeyo inta la jabsado retest lagu sameeyo up trend ka cusub la bilaabo ana maxaa ka raadinaya suuqaas kana suuqan down trend ka raadinaya suuqan up trend ba ka raadinaya ilaa ka arko change of trend marka change of trend qaabka loo raadsado suuqa insha Allah fiidiyaal baa ka sameynaya hadda laakiin uma joogno hadda waxa u joognaa suuq bay ku socdo ama suuq sel ku socdo seeba marka oo raadsanaa fursad sel ama fursad bay oo raadsanaa marka suuq maxaan raanay ama inuu down trend ku socdo oo sameynayo new low high new low high sameynayo haddii taa sameynayo waa inuu up trend ku socdo oo sameynayo waa maxay inuu low inuu sameynayo high low inuu sameynayo marka labada hadduu sameynayn suuqu waxaa jirto xaalad saddexaad oo galaa jirto xaaladda saddexaad waxaa jiro waxa weeye suuqu inuu samaysto high na samaysto low na samaysto laakiin wax kale uu samaysan waayo oo ku failal garoobo inuu meesha low yimaado uu jabsado inuu jabsan waayo oo new low uu sameeyo laakiin intuu taa sameeyo inuu meesha ka laabto mar labaad uu high ga tanto high in laga soo cesho oo mar labaad soo laabto suuq markuu sabtaas oo kale uu galo jahwareer uu galo maxaa la dhahaa waa consolidation ama maxaa la dhahaa ranging ama sideways market whatever aad u ogaanaysid muhiimadu ma aha wixii la dhaho laakiin muhiimadu waa inaad fahmi kartid waxa uu yahay marka suuqu xaaladda saddexaad markuu galo marka saddexdaas suuq markii minute la joogo maxaa ku ilaalin marka koowaad maxaa soo ogaanaysaa suuqaani inaad intriga qaadatid waxay kaala qayb qaadanaysaa jihada horta intriga u qaadanaysid wax kaala direction kaala qayb qaadanaya jihada intriga u qaadan doontid sababtoo ah haddii aadan ogeyn traderka lacagtaan inay ku jirto hadaad ogeyn ka war lacagtaan ma down trend ku jirtaa ama up trend ku jirtaa ama sideways ku jirtaa marka saddexdaa qaab markaas soo ogaano suuqaani hadda meesha tusaalahan ka tusdoona hadda meesha hadda marayo maxaa ku xigo fiirina meesha labaad oo ku xigto waxa weeye oo fiirin doono waxa weeye suuqaan ma wuxuu ku jiraa bush face mise bullback ku jiraa waa wax labaad oo muhiimka ah u baahan in aydan ogaano suuqaani waa market face oo ah suuq xaaladdu marka suuqa ku jiro suuq xaaladdu marka suuqa ku jiro maxaa ka wadaa suuq waxa ka wadnaa waxa weeye suuqaani ma dhaqaaq ku jiraa mise suuqaani nasasho ku jiraa marka labada xaaladoodba suuq hadduu dhaqaaq ku jiro maxaa la sugaa nasasha la sugaa
hadduu suuqa nasasho ku jirana maxaa sugtaa waa marka aad raacisid oo dhaqaaqa labaad sugaysid marka waa inaad kala ogtahay suuqan ma dhaqaaq buu ku jiraa bush face buu ku jiraa mise bullback buu ku jiraayo bullbackan marka haddii ka waran suuq saa usoo dhaqaaqay aad dhaqaaqii iska qaadatid ka waran trade dee bullbackii buu gelayaa SL baa meelahan ku yaal laga yaabaa bullbackii kuu gelaya SL kaga dhufana suuqa soo dhaqaaqaya marka suuqan macdaha ma jihada u khaldanayd mise waxaa khaldanayd meesha aad ka raacday baa ka khaldanaa waa inaad ogtahay suuqu markasta inuu sameynayo dhaqaaq nasasho dhaqaaq inuu sameynayo waxaan u malaynayaa daa waa basic structure waa wax qof kasta uu ogyahay weye marka suuqa meesha ka qaadanaysidna waa ogtahay adigu marka taa kuma dheeraanayo qof waa wax maaragta si aad simple ah marka xaaladda labaad oo soo ogaanaya waa maxay suuqan ma push Facebook ku jiraa mise bullback ku jiraa okay maalinta aad push Facebook ku jiraa ogaada maxaa sugaya bullback maalinta aad bullback arkaan maxaa sugaya in dhaqaaqa markaas trade waa isku diyaarinaya marka okay taa waa waxalkii waa market phaseski wey saddexaad oo ah patterniskii patterniska waxaa u malaynayaa maalintii hore saddex ilaa dhowr baa afar baatan shan baatan baa u malaynaya video ka horreeyay baa ku sharxa afartaa baatan hadda insha allah ma baahanayno waxaa keliya oo hadda ka isticmaali doonaa waxa weeye waa patterniska isticmaali doona waa perfect break and retest iyo double top continuation double bottom continuation labada bottom waa one bottom bay isla yihiin laakiin kaliya maadaama opposite sides ay kala noqonayaan bay waxay isku kan markuu buy yahay markuu sell-ka yahay waa isku mid kan laakiin markuu down side-ka loo qaadanayo double top buu noqonayaa markuu up side-ka loo qaadanayo wuxuu noqonayaa double bottom marka waa maxay marka waa maxay perfect break and retest perfect break and retest waxa weeye waa suuq soo sameeyay halkan muxuu sameynayaa suuqan oo down trend markii loo qaadanayo halkan muxuu sameynayaa high ahaa meel suuq high uu joogo low uu joogo marka suuq markuu lowgii iyo high inta u dhaxeeyo muxuu ii sameeyay low high markaan low high ma qaadanay markaan maxaa sugaya low high in lowgii cusbaa la jabsado si liigu cadeey suuqan in down trend yahay lowgii baa la jabsado lowgii meeshaan ah lowgii la jabsado markii lowgii la jabsaday maxaa sugaya hadana in lowgii space la siiyo oo laga dhex baxo oo meel banaan inta laga istaago hadana retest lagu soo sameeyo markii retest lagu soo sameeyo baa trade-ka qaadanaya down trend baa u sii raacaya trade-kan oo down trend baa u raacaya markaasoo kale maxaa la dhahaa maxaa sugaya new low sugaya halkaan maxay noqoto waa new low halkaan maxay noqoto low high that means waa maxay inta maxaa ku apply gareey direction ka ku apply gareey pattern ahaan oo isticmaalaya halka waa isla fahnaa umaleynaya marka ugu dibna marka baashi markuu kor u sameysanayo muxuu noqonayaa marka waa intii oo opposite ah markuu kor u sameysanayo waxa weeye waa suuq meel low ah joogay meel high ah tagay markuu high tagay sameystay muxuu sameystay high low sameystay high low markuu sameystay waa fiiri waa hoos ka hooseyso korkii kore that means high low ay noqonaysaa marka so meeshaani horta waa high oo waxay ka sareysaa lowgaani ka sareysaa waa low oo low waxay ka hooseysaa high-gaani ka hooseysaa that means high low ay noqonaysaa marka muxuu sameystay high u dambeeyay suuqa baa uu ii jabsada maxay sameystay new high uu sameystay new high-gaan ii sameystay maxaa sugaya marka new high-gaas ka qaadanaya may wax sugaya high low waa sameeyay marka high low-gii meesha retest ay igu soo laabtay ka sugaya marka high low marka khasamiya in retest ku laabto may wuxuu tagi karaa meeshaan u tagi karaa double top noqon karaa meeshaan noqon karaa meeshaan ka daadin karaa waa marka meeshaan isticmaalan marka muhiim ah marka waa deep pullback baa lahaa deep pullback waxa weeye waa in suuq inta la structure-kii last deep pullback marka hadda deep pullback ma isticmaalano oo kaliya double Disman oo ama bahalkii shan double top baa isticmaalana marka haddii la ku ron yahay كمان إلى فهمتين بجعلي قيمة التحاضر دبل توب وما دبل توب هو سوق just كلية مال هاي وهكذا كم دبل توب بتشوه مال هاي وتشوي هاي مركو تشوه لو سمستي مركا لو هاي هالكان ها ما دام أنا مال هال من السوق صلابتي أنا كل أوان كان ماشي أنا جاي علين كله فهو حسوسه أنتم مال تو level كوس سمست أنتم كعجة دعتو ومرة بعد level كي كوس صلابته double top waa second touch-kii labaad double top kuu soo laabto kabacdi markuu double top kuu soo laabto inaad trade-ka qaatid aad down trade u sii raacdid waa double top halka kan muxuu noqonayaa marka kan meel low meel high ah meel high low ahayd suuq low ahayd
in suuqu uu high samaysto markuu highgaa samaysto maxaa sugaya marka high low waa sugaya soo ma high lowgii aa sugaysay ma garanaysid marka meesha noqon doonto marka meeshii kuu samayso one level kuu samayso waxaa sugtaa in levelka laga dhaqaaqo levelka markii laga dhaqaaqo xoogaa adi space looga dhaqaaqo levelka markii laga dhaqaaqo in ka bacdi mar labaad levelka lagu soo laabto marka level marka labaad lagu soo laabto ka bacdi tirarka qaatay double bottom bay noqonaysaa second touch key double bottom uptrend oo sii qaatay tirarkaas marka kana waa patterns-kii marka waxaan u malaynayaa markaan waa dul waxaan fiidiyowga horena oo ku sharxayaa markaana waa dulmar marka dhibaatada jirta waxay tahay dhalinyaradu inta badan isla fahmi laanahay waxa weeye oo minute markii la joogo oo minute-ka qofku waa inuu leeyahay one pattern waa inuu leeyahay one pair waa inuu leeyahay marka maxay taa kaa caawinaysaa one pair one pattern inaadan suuqa ku waalan one minute-ku waa ku waalanaysaa suuqa one minute-ku ma aha sida time frame-yada kaloo kale time frame-yada kaloo kale waxaa laga yaabaa in maalinteeda badan aysan ku tusin laakiin one minute-ka maalintii intee ku tusi karaa ma garanaysaa tobanaan labaatameeyo trade maalintii kale ku tusi karaa marka haddii aadan ahayn qof qorshe leh qofku waxaa ku yidhahdaa lacag kasta uu arko ka waran haddaa maanta golli traderka qaato one minute ah saddex trader golli qaato saddex trader oo GJ qaato saddex trader GU qaato saddex trader USD qaato maxaa ahaanaya nin waxaa ahaanaya boodboodiyada maanta dhan waa boodboodiya oo waalanaya aniga suuq ku waalanaya marka suuq inaa ku waalatid lama rabo suuq waxaa la rabaa inaa waxaa ku yidhahdaa waarsatid just keliya maalintii laba trade saddex trade oo one minute qaadaad haddaa scalping samaynaysa unta trade-gaagaas saddexdaa trade laba trade ama hal trade ama iyo maalintaa wada direct loss ka wada baxa muhiimaddu ma aha losing inaad samaynaysid ma aha laakiin muhiimaddu waxa weeye consistency ma samaynaysaa consistency waa maxay consistency waxa weeye inaa maalintii suuq inta soo gashid hal trade ama laba trade ama saddex trade inta qaadatid suuq inta trade kale ka arki weyd inaa ka baxdid laakiin hadday maalintii ka hor dhaadni maanta suuq waa macaan yaha 10 trade qaadatid 10 trade sagaal ka mid ah lose garaysid hal ka mid ah win garaysid waxa ka khayr badan tahay saddex trade waa qaadatay hal ka mid ah win garaysay labada kalena lose garaysay faa'iido ku jirta maalinta laakiin 10 trade qaadatay hal mid ka win garaysid ka hor wax iskeenaya maaha marka insha Allah biidnaa karim waxa u gudbinaa marka entry waa maxay marka entry waxa weeye waa saver trade u qaad intii hadda aan soo sharaxnay saver oo dabaqi doonaa trading marka insha Allah biidnaa karim wala soo daawano marka saaxiibayaal halkan waxaan ku tusi doonaa insha Allah tusaalahan yarka tusaalahan labada dhinac insha Allah waa u qaadan doonaa marka lacagtan marka maxaan raacaa directional bias market phase iyo patterns marka saddexdaas insha Allah waa isku xirnaa intriisa oo qaadanano marka saddexdan qaab waxa uu suuqan hadda halkan muxuu kaga jiraa suuqan wuxuu kaga jiraa halkan ranging low samaystay high uu sameeyay marka halkan markuu low samar labaad baadana islowgii uu jabsan waayay markuu low jabsan waayay new low inuu sameeyo suuqan uu ku viral garow inuu new high samaystana uu ku viral garow that means suuqan muxuu dhaxeeyaa this two range uu dhaxeeyaa marka maadaama intuu range-kan ku jiro waa maxay suuqan waa ranging market way marka halkaas marka inta joogo maxaa soo ogaada suuqan hadda xaaladda halkan oo hadda maray inay tahay ranging market inay tahay waa waxa koowaad oo soo ogaaday marka ranging market marka aa minute ka arko maxaa sugiyaa marka aniga maxaa sugiyaa ranging market marka suuq uu ku jiro maxaa sugiyaa waxaa sugiyaa break of structure baa sugiyaa maxaa sugiyaa waxa weeye halkan waxa ka rabaa waxa weeye in suuqa laba mid uu sameeyo in suuq uu halkan uu jabsado halka inuu jabsado retest igu sameeyo bidhaaqo hadduusan retest igu sameeyna inuu suuqaan intuu meeshan jabsado meeshan level iga samaysto ka tago mar labaad levelka igu yimaado ka bacdina aad trade ka qaato waa labada mid inuu ii sameeyo ka bacdina marka maxaa sababta u sugiyo maxay tahay structure of break of structure suuqu markaan up trend ma aha down trend ma aha sababtoo ah up trend haddii inuu yahay waxa diidayo suuq up trend ay weenu new high samaystaa way wala suuqan maxaa dhacay same high that means waa maxay suuqan inuu new high samaysto uu diido suuqa muxuu diiday mar labaad inuu new low samaysto uu diido that means waa maxay suuqaas waa ranging way marka maadaama hadda suuqa ogaanay xaaladda uu ku jiro ranging miya mise waa bahalkii maxaa sugaynaa marka suuqan maxaan idhahnay in structure break of structure loo sameeyo let's go marka aan aragno marka in wuxuu noo sameeyo suuqa marka maxaan inta ka horeys banaanka tagnaa okay marka maxaa helna marka halkan marka suuq maxaan idhahnaa hoos ama kor u in loo jabsado samaa halkan wuxuu noo sameeyey marka
suuqa wuxuu si clear aan noogu jabsaday korkiiba noogu jabsada maxaa sugaynaa marka xaaladda marka clearka marka uu ku jiro muxuu ku jiraa marka xaaladdan waa bush face marka muxuu galay daaqii uu galaa marka ma bush face kan baa trade qaadanaya halkan trade ka qaadanaya mise halkan trade ka qaadan lahaa maya maxaa sugayaa in trade kan laba mid uu sameeyo inuu retest uu sameeyo meeshan oo levelkii ugu laabto mar labaad uu soo retest gareeyo ka bacdina trade ka qaato okay taa ima sameyso ma hadduusan taa ii sameyn marka waa inuu mid kale ii sameeyaayo waa inuu ii sameeyaa waa inuu trade kan intuu mar laba meeshan igu soo laabto uu ka dhaaqo meeshan igu laabto ka bacdi meesha trade ka qaataa buyga u qaataa hadduusan labadaa ii sameyn waa maxay no trade wax trade ah jira ma trade qaadanaya ma jirto okay marka okay aragna marka trade-keena wuxuu noogu dhamaado okay weli bush way ku socdaa level buu ii samaystay marka okay halkan maxaa ka haystaa marka halkan level buu ii samaystay maxaa sugayaa marka anu waxaa sugayaa waxa weeye waxaa sugaya waa maxay levelkan in lagu soo laabto in levelkan lagu soo laabto in levelkan lagu soo laabto ka bacdina mar labaad meesha yimaada trade-ka qaato buyga u qaato okay okay aragna marka halkan maxaa kaloo ka aragnaa marka halkan levelka uu ka samaysta marka levelkan inuu ixtiraamo ma laga yaabaa ha waa laga yaabaa marka maadaama halkan levelka uu ixtiraami karo halkan trade marka halkan markuu levelkan kala yimaado trade-ka baa dhiganaa trade-keena okay haddii marka intuu trade-kana gasho SL looga saaro ma khaldanaa may it's okay dhimana kaa kale loo arkaynaa kii labadooda marka noo saxsanaado marka okay 4 bip SL ay dhig monsterigana iga raadi okay aragna okay levelka waa lii jabsaa marka mar haddii halkan levelkan lii jabsato waa maxay levelka waa lii jabsaa lacagtana almost maxay tagtay BE way tagtay 120 way tagtay marka lacagta waa maxay safe trade baa BE way joogaa trade-ka okay marka trade-kan BE way joogaa trade-kan haddii uu soo laabto wax riski ah waaye ma lahan okay marka trade-kan maxaa mar labaad haystaa marka mid labaad haysto waa maxay levelkii suuqa high uu sameysay suuqa uu ii jabsado maadaama suuqa high uu ii jabsaday maxaa ka sugayaa markaasna waxaa ka sugayaa in suuqaas uu ii sameeyo waa maxay inuu retest ii sameeyo retest markuu ii sameeyo retestiga qaato buy u qaato okay marka trade-kan inaa kan weydid baa laga yaabaa kan marka hadduu kan nasiiyo fursad laad inaa fursada marka fursada ka qaadan inaa waxa laga yaabaa kan aa heli weydid kan aa heshid marka muhiim khasab maaha in labadaba wada heshid markasta laakiin muhiimaddu waa inaad hal mid aad ku dhignaatid labadaas wax mid tusiyaa in adugu baahis garaysaan marka let's see marka aadi ugu soo laabo levelka okay levelka uu yimaaday levelka markuu saa u yimaado 1 minute way waxa waa inaad boobsiisaa 4 bb u qaad marba okay 4 bb u qaad trade-ka 4 bb baa ku haystaa halkan 120 baa ah lacagtu markii jahada aadi mayso lacagta maxay iga noqotay fiiri trade-kaas intuu 120 ii tagay uu BE iga noqdo lacagta sidii saxda maxay iga noqotay BE iga noqotay laakiin haddaad BE ka dhigateen almost 123 ga kuu tagi lahayd oo ku dhaaqi lahayd marka muhiimaddu ma aha hadda anaga muhiim nooma aha trade-kaasi inaa win ama loss muhiim nooma aha ama BE laakiin muhiimaddu waa maxay qaabka u qaadanaysa trade-ka wey marka haddii aan rabno intaan oo kale oo down trend ah waa maxay maxaan sameynaynaa insha Allah video marka mana badina ma rabno waa sida kale qaab kale aan ku tusiyaa
iyadoo vertical ama sida kale hab kala ka dhigay marka tradekan kaba soo qaado kale saan u ahaa lacagtan waxay ku jirtay xaggaan qaab insha Allah qaab yaran ku sharxi doonaa lacagtan range-kan ku jirtay range-ka markuu ku jirtay maxaa sugi lahaa range-ka inay ama uptrend u jabsato oo korka aado ama inay downtrend soo jabsato marka downtrend marka isoo jabsatay maxaa sugi ama inay retest igu samayso ama inay new level samaysato marka new level-ki laba level base level-kan iyo level-kan ay samaysato level-kan marka low waan down loo jabsaday new low samaystay low high bay samaysay marka low high marka new low bay samaysay marka low lowgan suuqi kii la low-gi dambe low high ugu dambeeyay uu ixtiraamay level 12 ka samaysay kan uu ka soo daatay kan uu ka soo daatay marka traderkaas soo qaatay traderka markaa qaatay fursadan marka ilaa hoos ma u qaadan kara ha fursadan marka mar labaad fursad ma ka qaadan kara marka meesha su-aasha taalo waxa meeshan fursad labaad ma ka qaadan kara oo ah inaad ka qaadato retestigan haddii aad aragtid aad ka faa'iidaysan kara testigan qofku ka faa'iidaysan kara testigan see uga faa'iidaysan kara testigan waxaa sugi lahayd in levelkan hadda kan maxaa u qaadan waayo kan sababta suuqa waa in suuqu marka uu meel level ah ii jabsado waa inuu levelka abaar intuu ka dhamaado uu saa ugu soo laabtaa ma aha laakiin levelka intuu saa u jabsado inuu saa intuu ugu soo laabto ma aha xoogaa way ka riski badan tahay retestiga noocaana iyo retestiga noocaasa perfect baa lahaa ma aha fiiri break and retest ma aha waa perfect break and retest waxa qaadan waa mid ka qaadan marka perfect u baahana marka kan waa maxay level top marka kor jirana muxuu noqonayaa level bottom waa ku qaadanaysaa kan muxuu noqonayaa retest xakalna waa retest marka insha Allah binalkay videogan adaa wax badan ku celcelisid waxaan rajeynayaa fahmi doontid waxaan rajeynayaa insha Allah inaa waxaan ka faa'iiday videogan haddii insha Allah ay tahay markii ugu horeysay oo channelkan aad video ka daawanaysid insha Allah subscribe si insha Allah videoyaasha dambe oo la socotid ku mahadsantahay saaxiib daawashada videogan soo daawatay hadaa intaan soo gaadhay videoga insha Allah waxaan rajeynayaa kulanti dambe oo khayr qabto ama santiina saaxiibayaal